تشطي وبيتو رقود كعيل بحاي وبيتا عبكودي ميل مريي وبيتا كلو إلهسيي وبيسو مالي لان تشطي وبيتا لأيو تلمان دادلبا وبيتا طوعان كتابا قلي تباي أولهاي تسمى بلاني هوبا لهوبيوي وبيسو مالي لان تشطي وبينا بدودة تامك أهي وبيكو الرحان تاريخ أهي وبيتو صنبانو لنا هاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لوكو بالله يا حاجة مكناس أي وجهة نظر كان بس يا عجبت أي دمان مكناس أي جناس ترى أي ما كان عمر يقول لي أخذ صوتي دود الوقت تبدأ ما تيجي هذه أكون كان هذا الأكون كان على صوت الشيخ مكناس أي نسوي تبدأ ترى في مكناس أي ارتقاء إلى وكناس تجين كل بلاد بتيجي من اسمه مثلا حديث كل الأسبوع غير عاود النفر دون الأسبوع اللي يشوفه marka shan minute oo kooban oo degdeg ah waqtiga xasiin ah isbarasho iyo qof kasta magaciisa iyo halka uu ka yimid iyo halkiisa joogaba si loo degdeg ah uu bilaabo marka xagga asaas ka soo bilaabo shaqada بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يوسف بعد هذا الشخص عبد الله بن علي حبيب أمك كم يوم بعد هايو بكار بسنة وعن هاي إتحسن صوت جميلة وسبع عليهم تحت الأبواب. طه أحمد إسماعيل حبيب مداهمة هاي غير بسنة عاود محمد مريء وحبيب مضى يسوي عمر محمد محمود مقبول شد ولا عراد إبراهيم جامع وكمل كور حكومة UK. محمود حسن أحمد صلاح وفي السعودية أوسفرية. سعيد عثمان علي ايوه قدوميه حقيقه كورو حرقيس حسن شبح حبيبه في مريكا كبيرة في الزور هو سيد أبو محمد حقيسة وسيد عبد محمد حقيسة باقي علي عمر لندن إنجليز خبرتي جدا سيد عبد محمد من عبد النوري نور كيف على حج إبراهيم عقيل أنا فايسة محمد حقيسة أساسياش يوم بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد داير سعد حسن قدوميها أورك أمك. مصطفى محمد يوسف تيم ليدر وضع مقاهية MCH. حمزة حسن علمي العالم حمد خضر حسن محمد أحمد وكيل UK. محمود تفضل تفضل إن شاء الله الناس اللي بنتي سباشن لكن حسيت إن الضوء استحالة وجدوا كل كان عارف فين سوي مني وحاول جدوا كل كانوا أدي أروح أول ما دام وقت وكمان هي نشيء بدون الدنيا وركا ترداه ساعة سلوك بدون بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أدنى كلمة نقيا كمان إنها قالقة سوق أي كل كان أفريقيا أنا أنت بدن رمضان نوعا وكلا وحنوص بيننا سير بالشدة كويس كان سكبرتان أي إسكان ورئيستان أحواش الجود ديجان هذا حتى يقرمر تحي حتى وحويا سياسة تحي حتى وحويا تحي arrimaha kale ee bulshada marka kulamada inta badan ururkan wuxuu u qabtaa qaabka noocan oo kala in bulshadu bal isku xog waraysato danahooda gaarka ah iyo isbarashadooda kala guud iyo sidoo kale midnimadooda sidii ugu ilaalin lahaayeen in bal ay yihiin magac qura ay leeyihiin ururkani sidaa ka warqabtaan muddo hore la aasaasay gudoomiyihii tobnaad ama dhowr iyo tobnaad baan filayaa inaan ka mid ahay waxyaabaha loo aasaasay baayaha loo aasaasay waa ka mid waxyaabahan sheegay sidoo kale waxaa ka mid ah waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo arrimaha deegaanka iyo biyaha oo deegaanadii qoyskani degayay in badan dib uga dhacsan deegaanada kale sidaa dadka kaleba isku tashadeen ayaan inana jecelnahay in bulshada intaan isku soo ururino aynu dhahno isku tashada jabadaha gacanta geliya bal deegaanadiina dib u eeg marka haday diini tahay haday maadi tahay haday caafimaad tahay iyo haday biyo tahay in deegaanadii ay bal bulshadani ka warhayso waayo dadku waa wada xoogsato way sii jeedaan dadku mar walba waa la helaa team soo jeediya dhabarka taabto la yiraahdo bal xaggan soo eeg marka taa waa ka mid waxyaabaha horta ururka loo aasaasay ururka ilaa imika wuxuu gacanta ku hayaa iskuulo fara badan oo deegaanada reerku ka mid yihiin reerku deegaanada uu dego oo dhan muu wada gaarin laakiin qayb ka mid ah ayuu gaaraa oo ilimaha balaga cas abaarso xareed dhulkan eriyada axyaa hargeysa hareeraheeda ayuu horta inta badan awoodiisii taalkiisu ku egyahay laakiin hamigiisu uu ka fog yahay oo waxa weeye ilaa meel kasto tuulo kasta oo qoyskani dego ee iskuul ama caafimaad leh ama biyo u baahanba inuu ka howlgalo ayuu horta ujeedada loo aasaasay ahayd inuu gaari doonaa insha allah taas waa mid iskuullada inta badan imika iskuullada uu gacanta ku hayo arday cadad aad u tiro badan baa dhigata aad u fara badan baa dhigata oo qiyaastii gaaraya ilaa 200 iyo ama 300 ku dhawaad ayaa dhigta ardayda deegaanadaas lagu hayo ee ururka uu waxa weeyaan geeyay macallimiin tarbiya iyo quraanka iyo carabiga iyo sidoo kale masaajidada deegaanadaas ka dhisan nin macallin ah oo gacanta ku qabta marka iskuuladaasi badankood wasaaradda waxbarashada ka diiwaan gashay macallimiinta laakiin se macallin khaas ah oo ururku fangareeyo ayuu geeyay budgetka siiyo taas waa mid oo shaqada ugu weyn horta waa waxbarashada sidoo kale waxaa imika soo kordhaya caafimaadka oo xanaanada inankan inagala fadhiyo MCH-ka wadama kaahin isagana baahidiisii ayuu maanta wataayo waa la furay waxyaan waxaa loo baahan yahay itaalkii qoyskan uu lahaa in gacantii ay ka geysan lahayn baa laga filaya in laga sugayaan sidoo kale wax weeyaan shaqooyinkaas waa shaqooyinka aynu rabno inaan qabno riigag baa jira sidoo kale deegaanada oo dhan ka wada furan ilaa bulxaad waxa ka sokeeya ilaa wadama kaahin riigaga ka furan iyagoo ku dhow haddaan mar walba gacanta lagu hayn deegaanada aan tala iyo tusaale mar walba lala garab taagnaan iyagoo ku dhow way dayacmayaan way isxidhayaan marka waxaasoo dhan waxay u baahan waxyaabaha ururka shaqadiisu ay tahay una baahan yahay in lagu saboorti gareeyo lagu taageero lagagana warahayo sidoo kale in midnimadiisina la ilaaliyo caawa oo kulankan aan kusoo koobayo hadalkaygii oo ah aynu u furnay muhiimadiisii waraaqaha aan idiin qaybinay oo ah bixin deeq waxbarasho oo qurbo joogta qayb ka mid a halkan joogta ay budgetka ku leeyihiin ay soo fangareeyeen marka tirada halkan ku qoran waa 6 arday aynu haynaa oon rabno in ama agoomaha ama danyarta maanta secondary ka baxda ee aan gaarin awoodin inay helaan jaamacad in ay bal ayuu hayo qoyskana waad garanaysaan siduu u ballaaran yahay danyartiisu u ballaaran tahay
agoomihii qoys la soo koobi kara maaha 6 qofood kuma filna laakiin haddana waa khudbad taagtii u rogmadaayo maanta waxaynu isku qabnaa inaynu base hoose ka bilowno waa bilow base-kani wuxuu gaarsiin karayaa inaynu berito gaadhno konton ayaa laga yaabaa inaynu gaarsiiyo marka waa dadaal bilow ah qurbo joogta iyo waxa weeyaan ururka ummadda gudaha way ka wada shaqeeyeen mashruucan proposalkani waa la soo dhaweeyay marka caawa waxaan u fadhinaa inaynu talo iyo tusaalaba ka bixino 6dani makaahi sidee buu isu deeqsiin karay sidee buu maxaa ugu filayay maadaama ururkani mabaadidiisu guud ay tahay urur dhex ah oo 6dii jiliba reerka uu ka midaysan yihiin oo maanta deegaan kastaba uu matalayo aanu dhinacna ahayn haddana waxaanu diidaynaa inaynu xafiiskeenu keliya awood aynu leeyahay inaynu ku maarayno in haddana bal bulshadii aynu talada qolo walba halkeedu inaynu ku teginaa intan halkan isku timid iyo intay naga maqanba qolo walba waxaanu jecelnahay in halkoodii aan ugu tagno talo ku weydiino si bal ay u soo ururto arrinkan si qurux badanna ay ugu soo afmeeranto dadkii loogu talagalay baahida dhabta ah ay haysay waayo maanta meelaha qaar waxaanu bixinaa afur baanu bixinaa oo aynu danyarta siinaa oo ugu talagalnay dadka muxsiniinta ay la soo baxeen dadkaasi waxaad ugu tegaysaa meelaha qaar reer makaahiila oo dabka loo shidin haddana ilmahooda dugsi sare dhigto reer kaloo jaarka ah 15 kuleelaana secondary-ga laga qaado aan awoodin qoyska jaarka oo makaahilnimo kaga bixinay oo soo arag aan soo dul taagay marka duruufaha noocaas ah qoysaska haysta waa inay noqdaan dadkii rasmiga ahaa ee xaq u lahaa inay helaan fursadahan oo kale helaan ay xaq u tahay marka waan kusoo gabagabaynayaa taladana idinkaan idin soo wareejinayaa soo kusoo dhawaada sidoo kale xubnaha qurbo joogta waan soo dhaweynayaa intaan kusoo dhaweynaynaa waa walaaladiinii baa idin hor fadhiya adeeradiinii baa idin hor fadhiya kusoo dhawaada wadankiinii sidoo kale xubnaha boardka ururka ayaa iyagana halkan fadhiya xubno kaloo qaaliya ugaaska caaqilka waxa weeyaan xubnaha kale iyagana sacuudiga ka yimid ay yurubta kale maraykanka intaba waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada hargeysa iyo waxa weeyaan iyo deegaanadii maqaayadka degayayba iyo sidoo kale waxqabad iyo midnimo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib waxa weeyaan ujeedada caawa iskugu nimidnay inta ardayda waxbarashada ka bixinayno inaynu tala keliya oo qof kasta selection processkii lagu soo xulay inuu ka eego processka waxaa ugu muhiimsan in qofka caruurta qof danyar oo qofka jaamacad haysta oo iska bixin kara isagoo ka bixin kara mayno laakiin dadkeenu si usoo niyoodeen waxaa lacag kasta si loo soo niyooday baa dabaganaasaa lagu bixinaya qofka hadduu wada lacag kusoo niyoodo dee uu la soo baxo wadadii baa lagu bixinaya hadduu waxbarashadii hadduu yahay garanaysaay dee afro kale afarkii marka intaa 6 qof ay dadka dibadda dadaaleen oo ay keeneen garanaysaay gudihii inkastoo jeclaan lahaa in caawin loo joogtay ganacsato fara badan dalkii oo inagoo hadda aynu dhexdaa iyo nabilaadkiiba ku darno hase haatee nasiib darrada waxa weeye inagu markasta waxaanu wax ka helnaa way dibaddii weeyaan bal gudaha laftigeeda markaa xoojino sidii gudaha laftooda wax loogu qaban lahaa loo xoojin lahaa laftigeeda inuu taa ka hawlgalnaa fiican markaa ururka kolley walaalaha saad aragteen waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeyaan 6 arday waxaan kolley kasoo xulnaa dad danyara cid gaarana kasoo xulmayno maalmaha dambe kolley waxaa jirta dad fara badan inay ururka kolley ku dhahdaan malaha weeskina noo joogiya cadano iyo malaha ururku waa urur iska socdo unoo culimo aftuuno culimo arkiyo kolley malaha 2-3 qof ka culimada inaan garasa in la filagaadiyo taasaa ka baxo waxaa kaloo jirta ururka cidna ma xaqiiyo desaanka caawa arkaysaan dee cidaynu hays ma garanayno laakiin maxaa isugu keen keenay dee makaanilada isugu keentay dadkeena inay ku qabanada isugu keentay muhiimadda weyn oo taas laga yaabo kaliya qofku hawlo khayriya timaado dadka oo dhan wada qabtaan iyagoo ilaahay doortay in hawlaha khayrka ka shaqeysa maanta wada garanaysaa dad ahaan tira ahaan jirnahay wada garanaysaa cid inaga tira badan ma jirto haddana tahay ahaan iyo waxqabad ahaan halkina mar laba garanaysaa marka waxaan doonaynaa inaynu tayadii intaynaynu xoojino haddaynu sidaa ku wadno waxaa iman doona 100 kun oo qof oo inagoo kala ah oo reerkan soo baxa oo wax u qabta marka aan la niyad jabin hawshana waqti loo soo horo halkaan ka wadna ayay mar kasta ama ganacsi cid kasta ku dhiirigelinaa weeyaan haddii laakiin qofku maalintu mashquul noqdo ama ma garanaysaayay dee kulley dana kala meeshuu iskaga cararo runtii dee waxba ma tarayso inta halkaa fadhida ururkuna weligood 2009 ilaa maantay soo wadiyay
iyo hawlo way badan yihiin qof kasta waqtigiisa yare uu horo maanta way garanaysaa hargeysa yalla iftaan way garanaysaa qofku ku noolaanaya sida dadka noo sheegay xogsanaya way yar tahay qofka dariiqada uu reerkiisa u qaa ama wax qabad kale uu qaaday bilaasha ku qaaday haddana dadkaasi mutadawacnimo waxay waqti u siiyeen inay isu yimaadaan way garanaysaa waqtigooda dhaqaale wanaag u bixiyaan marka waxaan ka codsanayaa dadka inay soo dhiirigeliyaan wax qabadkan gacmaha isku qabsano halkan ka soo horumarino insha Allah taala kulanka iyo kulanka ka ballaaranba oo aan dadka dayarta ugu qabanayno insha Allah taala way sii saarin doonaa xagga waxbarashada weyn dadka xagga wax ka dhisma maanta kulli deewan daacadka badan ka fiican waxbarashada ka mid ah caafimaadka ka mid ah marka ururka taagidka waxa saaran waxa ka mid ah dadka qaar oo qorniya ururka muxuu qabtay macallin meelkii hadii macallin meelkiiyo arday ma fatan quraan xaafid oo soo saaro ilaahay inta maxaa laga socday qof quraankiisa waxa lagu jeceliyaa وسدد التشاريع قف كل صوب حاجة حتى يجري الدنيا وكان أول محمد قام معلم تلقي تقف له حتى لو قد جي واحد من قف يحب يحكي وين دراسة مركاولا هؤلاء فرضان يا خيال فرضان مطولين تناهما فكان يقولون هؤلاء الترانسفيرين سمعناه يحنا أربعة سنين وسهل لهين أنا بقول هؤلاء حبي لما أنت كتير في مكان الصوب اليوم أتفيست إلا نبر كنتي كل نظام منها الأسبوع كانوا examination على النوع examination كان لحدي أربعة وسهل كل مركب ورقة ركتان أي نصينه وجراسة مركب كل تلبينا سوي شيء كل إن شاء الله تعالى قف كتير سعينا وسوق كلنا أنتي تلو كل يوم كريس الله كل كرب كل يوم أقولون دلنا كسول هذا المسألة قف كتير مين بقى هذا كيف نقال؟ هو يعني لا يصح لا يصح أدبر يعني أورك أمة ويا عيال معنا أورك أمة باوش خيو أورك عيوية غالبا إن إن الحبيين إنه إنه من لماذا ما كهيك شقينا واحد من لماذا ما كهيك شقينا أورك أدي يا أبان هبلينا يا أوركم جبل يدلبوا وان هبلينا يا سيد في عام هوش هبلينا يا هدي ترى هانا نصور نقطة قدر كان أجندة ما أنت لقد ملايين وحق لا أوركم مدن بحلال أوركم تسوي تيجي مكايل تحكوا يسجن يتمنون رالك النهاية أنت أقولي بعد تقبل يسووا حكوا دقائق وهجي كان يحبي على دحدقين وحبيان سوق للولين وحويان يجا يا تجا ميركستا يجا بوكستا تجا يجا ديكستا كشقيا يجا يا هبيني مال وسوتشي لو عن كفري سنتم تريكا كل مرة لو بكرة جبل يتربى وحويان واحد اسمه كان وادوني ده كنا حديد تعودات ويرون وعدو وحكم لما قدموا بعد ذلك الدرة عدالة يوم ترى marka tale la isku yimaado arrin baa yimaado dabeet arrinkiina inuu cadaalad helo baa meesha tahay marka waxba sii badan maayo hadalka waxaan leeyahay iminka waxa makahayl ka xun wax kale kama xumeen tala la'aan baa meesha tahay taladii un bayin in makahayl noqoto laga yaabaayo ay arrinku dhaqaajiso inna aan lala hadal dabeet halkaas fooda ka yimaado tii kale hore waxba noqon maayo cabasho iyo waxa ma tarto dhammaan qudbajooga waxa aan ku buurinayaa wixii ama yaani taade ururka umad qabtay ama cid kale oo ilaahay soo diray ay qabatay ee deegaanka beesha laga qabtay in aad u halgantaan oo hadday dhakhtartay hadday riib tahayba aad wixii kulba ka xumaada ka war haysaan ururka umadna aad soo idmataan wixii kulba yaani taade دين كنا أنا وأخونا إن أقولكم مدرسة كيسان بين يعني دينك مريها أربعة دين سلامية إلى هاي الجبارة أنتي لما تي أنت بدين اللي سوها جيسة الله نحرسته أنت بكتة
maanta jiiftana Allah ha caafiyo bishan barakaysanna ilaahay khayrkeeda hayna siiyo Allah ha inaga aqbalo waxaan leeyahay oo idinku hambalyeynaya gobojoogow ururka ummad waa makahay ururka ummad waa makahay midaysan laakiin waxba cid alla ciddii wax ka sheegta ururka ummad cid been sheegaysa aad iyo aad baad mahadsantihiin aad baana ayaan u mahadnaqayaa دورستان تعدوا فيه دورستان تذكر يذكر وين بين هذا إن شاء الله ميزان المستقبل كل كشرستان ومر يمل جاران وما يشام مودان سأل دورستان هذه يدور ما سنتين إلى هنا هتكون كربون ونتكون هذينا وحاليا واحد بعطوا كشير نبتشو واحد نذكر نبتشو وهو أحسن ومقع ومغنى سمده ميزان ما نذكرنا إلهي واحد برينا وإلهي وجلس إلهي برينا كبرنا ودربنا إن إلهي مر شيء كسنستان إلا كسنستان تركي إذن كنا يو هو عرض طبعا الدور سنة إلى كهذا إلا هي تكرم وتكرم وأنا الفرق والفرق مرة ده هذا نقرب كلام كمان بعد فرقة يك كلام مالك شريك مالده وحباي يك دبل يك هذا نسكت برنامج ونقول واحد وسوي شيء وهذا سلاك كمان فأما سؤال ما قبل كتاب كريدي وأنا أهل لي أدوم من الجيل كتاب هذا سوق جديدية هاي تهينا بعد فرقة يك كراس كاي نل شغونا أكثر هيست يك وسير يك حلبانك وين هو ده الشغل مرة هو تشانع أو نل هو تشيله ولا كسلا يورك الجاري ويبغى من تذكر بيني لكن ما ده حد ده إن أي ما حاجة برا كل دونا تو أنا مرة تريك ما نقول حاجة مرة لا يقعد مقالة سويش كده سمالة وأي ما يعني عادي هذا حاجة اسمها نقطة حاجة شغلها نقطة حاجة سكرناها نقطة أنت هاي روح عند وحنون أنت هاي مركب حيوانات أنت بحيوانات حاجة سيا أنا باص عند وحنا أنت أنا هذا كده بدي كردي ولا كيرنا بس إذا أنت كمل وجهي له هذا إذا كانت أسرع هذه أدوم أسنتي في عام أمك هذه أدوم في عندي سيدا في عام إيه مقرنا سرايا قبل كلاه هوش هو قبلتين قوله كيف ده فنتي ولا شقين في عمل كده حسي بعدين نقطتي دي وجنتي يوتي مقرنا سرايا كان عرضي ضبا ولا شقين في عمل كده حسا ما أنت روح ولا رجلي سيدا في عام مقرنا سرايا هوش هو ضاني وأنا كوكل صناعي أنا قوم قررنا سيجارة وركب سوبر يسندونا تيانا كريجو حتى أنتم كسرنا قدو قررنا سواح برشة عبي طباخ وبطه كلي أنت دوت مكان راسنا وجالس وكده وجهي أمبي مهمة تحيل مقررنا ساي إحدى أرضي ورك أمة يجو أي سلفين سنيان أو أم قررنا ساي إدي كوه بور أم قررنا ساي وحساب شروطها اللي قباني كنا يوصل لا أنا أقول لكم قرب كلنا قدومية هينو فريا كنتي آدي أدو مهتمين وحقبت كلام نصير لما بينا آدي أدو نسمع تمنتي حاضر هونك حق هونك وقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأنا دم السلامي ناس يا عقال يا كتوبية يا أورورنبا يا حبنا صور غير كلاي نجيبه إن شاء الله وإلهي سيدنا بس بالمبعيد بالمباركة إلهي هاي نورديو أور مباركة إلهي هاي نورديو هذا ويدون لما يساه ururka ummadana waxaan la shaqaynaynaa muddooyin marka shaqayntoodana wallahi waan ku faraxsanahay xalay ugu dambeysay daahir saacad iyo axmed sheedal yari aniga samsam galbeedi 12 bay noogu dhacday anagoo reer u geynina wax markaas wada shaqayn fara badan baan nooga dhaxaysa waana ku faraxsanahay inaynu urur leenahay waayo marka hore waxaan dareemi jiray in maaragtay aan ka qiiroonay dadka kale inay urur leeyihiin oo aan urur lahayn ويدك كلا صناديق ليون وصناديق لهاي ويدك كلا جمعه هذا إسكاشن يعني دبل يوجد إنه بس أي ما هي تطلع فعارضة حبا نروح ناجي ما تسوى فرح صن هاي أنا جوها كايد الله فديا واحد دبل كي يمدي واحد بتشوفه
intaasaan kusoo gabagabaynayaa insha allah mashruucan ardayduna waa mashruuc fiican oo aanu ka fakarnay wax badan intayda qurba joogihii oo nisniri ardayda dhalinyarta intay tahriib samayn lahaayeen waa ku bilaaba horta 6 arday laakiin inaga awoodeenu dadka qurbaha joogo qura way deeqaysaa inay 20 arday soo saartay wax ka badan insha allah 6 arday waxa weeyaan marka tajribad aanu islahayn ardayda iyaga niyad jabinay horta 6 ay wadaan 4 sanadood hore ama 7 sanadood hore way qaar ba midsan dalban kara oo sanadoodu ay badan kartaa marka hadday ardayda ku najaxno mashaariic fara badan waynu qabsan karnaa jamca wadajir bay wax ku qabsadaan insha allah ilaahay dad isu hogaamiyo ilaahay isu keen insha allah waana saasa kusoo gabagabay salaam calaykum ilaahay horta sida khayrka lahayna waafajiyo marka hore ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad leh mar labaadkana dee kullay ururka iyo ciddii wax la qabatayba waynu u mahad celinaynaa ururkuna taageerayaal buu leeyahay oo wax kastaba ama fikir halaga taageero ama adduun halaga taageero haddaanu taageero hadduu taageero aanu haysan isna shaqayn maayo cidda taageertana de waynu u mahad celinaynaa kullay hadalku dee ma badnay qodob un baa layna soo dhex dhigo qodobka ka taliya intan kaleemka lasoo celcelinaya waa dhaliisha iyo wixii ku saabsan horta waxaan idiin sheegayaa qof hadduu masaajid ka eedaamo dadka qaar baa idhaa cod xuma hadduu masaajid ka eedaamo qaar baa odhan inay cod xuma muska aamusa marka idinku haddii aad tihiin ururkii ugu talagalay inay bulshada wax u qabtaan horta ha ku talagelina laydin amaano waxaad ku talagashaan 80% in la dhacaayo waa nisbada badan 80% waxaad ku talagashaa waxa wanaagsan ee aad qabanaysan in lagu dhaliilo waa sunno iska caadi oo jira waayo ka soo bilow ilaa ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray qof kasta oo wanaag ku baaqa wala dhaliila waxa laga yaabaa qofka xumaanta ku baaqaya waxa ka dhaliil badan qofka wanaag ku baaqaya marka idinku ugu talagashay inaad bulshada wax u qabataan waxa ogaataan dhaliishiina way badanaysaa marka ha ka dabqanina horta ay dabqi taasi waa talo waayo waxa jira dadka in sideedaba wanaag uu dhibo oo aan doonayn in wax wanaagsan la qabto dabra kii uu joogaa uu ku ag taagan marka ku talagal inuu marka ninkaas kaasoo hortaagay kaasoo hortaagay oo wax saabtamayo oo habeen walba wixii wanaagsan aad qabatay iska uu doonayo inuu istiskad oo ka daba mariyo oo inaad ku talagashaa marka waxa weeye siyaasiyan in wax loo maareeyo mooyaane in aynu maxaan ku raayna dhigto ama aynu doono inaynu maxaan ku raadaay aynu istifaacno kaga guuleysano cidda noocaasa qodobka labaad 6 arday iyo sida la yidhi haloo makanaysaa halooga taliyo anuu waxaan ku waafaqsanahay ra'yiga hore sida marka horeba arrinka dee laysoo waafaqay idinka laydinku daayay anna horta waan ku waafaqsanahay laakiin tala yar baan raacinaya taladaas waxa weeye 6 arday baad tirahdeen waxaan u fahmay malaha 6 jilib bay u jeedaan waxaan jilib walba nin laga keeno waayo xaggada hoos waa loogu daandegaa haddii ay ujeeddadu sidaa tahay ceeb maaha horta haddii ay sidaa tahay ceeb kuma jirto haddii 6 makaahil jilib walba mid laga keeno wax mushkilada kuma jiraano mid makaahil baynu u shaqaynayna waxaanu shaqaynaa makaahil waa jilib oo ilaahay jilib naga dhigo wada firsani ceeb kuma jirto markay wax qabad tahay markay wax kala jiidasho noqoto ay jilibaysu xumaanaya haddaba haddii ay sidaa noqoto anigu ra'yigayga waxa weeyaan maxamed makaahil iyo muuse makaahil baa inoogu yar 4 jilibaa kala haddii la yidhaha 4 jilib walba nin baahan oo mustaxiq ku ah ama arrintaa ku habboon ha laga keeno waa laga heli karaa 4 waa laga heli karaa laakiin waxaan u leeyahay maxamed makaahil iyo muuse makaahil waa maqashay marka siyaasadda laga hadlayo dadka qaar baa yidhaha gabooyaha kootaha la siiyo dumarka kootaha la siiyo anigu waxaan leeyahay maxamed makaahil iyo muuse makaahil kootaha la siiyo waxaan leeyahay ha u eegina maxamed makaahil muuse makaahil ha u eegina dan yare anigu waxaan leeyahay haddaad nin ka soo heshaan ka ugu taajirsan noqdo isaga ka dhiga way inta caawa halkaa fadhida wax muuse makaahil maxamed makaahil horta miyuu nagu jira horta miyuu nagu jira si haddaba bulshada ama jilibadaas ay u soo dhex galaan bulshada oo ay safka u yimaadaan anigu waxaan leeyahay hal la doono ka ugu tacliisan hadduu yahay iyo ka ugu taajirsan hadduu yahay لحدان هلا قبل على الله من أوجيب كاس. أفر تكسر على مكان ده تنسى تنظر الكوباية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللي هذا الواحد مدة يبدأ راضي صلاة دين ولا جاري. نقول أمة دي أربعة بليانية. كنت هو فرد جيل بعض يعني ما تو أفر سنة كهرباء فرد كهرباء كنا وايد لا
runtii khayr iyo wanaag badan dad isugu yimid weeyaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay isweydiiyaan oo laga yaabo qaarkood wadaadamo inay yihiin inay isweydiiyaan qabyaalad baa ururkan lagu dhisay ama maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam diinta markii lagu soo dejiyey tolkaa ka bilow baa lagu yidhi wa andir cashiirataka alaqrabiin marka in dadku isu yimaadaan oo dadkii wax isu ihi makaa hilmaalin buu oday hal cumar booshari kale u ahaa waa caruurtiisii oo intani iskaranla iyo inta kale badaniba marka waxa weeye inay wax wada qabsadaan oo istaageeraan oo mid meesha ku jirta cidda markaa dhaleecaynta wadana kulley aad baa looga hadlay oo iyada ku noqon maayo waqtigaa iska gaaban qadiyadda 60 qof waxaan leeyahay sidaa ururku kolley usoo dhigay ha loogu dhaqo keliya qodobka damaanadda ayuunbaa laga yaabaa in uu yar baahda in wax laga bedelo oo de inagu dad muslimiin nahay markaa loo dilowgeenu waa shareecada islaamka marka waxoogaa waxbaa kasoo noqon kara qodobka 5aad qofkii waa lacag lagu taageeraya lacagtan iyo sadaqa ah sadaqadana qofka soo celi lama oran karo iyo maaragtay damiir laakiin waxaa la samayn karaa waxaa la oran karayaa muxuu ahaa lacagtan waa amaah dad jaamacad sabab soo laga dhaafay haddaad dhamaysan wado aad sigsaagtood ciyaartana deyntii waa laga rabaa marka hore deyn ha laga dhigo qofka hadhow tolo marka uu dhamaysto laga dhaafo dii kale marka hore sadaqad laga dhigo hadhow tolo lama weydiin karo qofkii lama oran karayo sadaqadii soo magdho كل انت عشان عندها ناصر بسم الله تدنانت ودنا تنتين وهذه ما احنا قلنا كليو كعاون بدي لو كل لو حرص على وانا انا ويو ku jira arinkana waa shaawirhan fil amr الموضوع اذا عصمت في التوكل على الله waxaan ku soo doonay tiray fil amr soo jeedisay sida Umar sheegay waxaan sameynay sarfay dadii dibadii gudaba muddo dheer waa la cilmi intii qodobaan soo sayna dhaliilo iman waa afkaarta aydan hayaan aan markay ka qaadanay qaar kamid ah aanan hayn ayaan hortooday in kalena waan soo qaaday qodobada adag diintiina ayaa ka soo baxay runtii xagga sharciga laftigeeda oo midna waa dib baa lagu doonaa waxa naga ahayd inaan la tisaahulin waxa taabka la soo geliyo dadkaas ay ku soo dadaaleen oo meesha aan u arkayno dadkaas la yahay final taladiina waan qaadanaa waana ugu doonaa kulli gudiyo board iyo waxa loo saaray group final waxa la isla soo qaato إن شاء الله واحد كارك تونتان وقصتك iyo dhamaan qurba joogay dad waka yidibada sigaari si guud ahaan wax loo qabtay sigaar samsam yasaynad aad bin wala shaqeeyay Umar iyo xagan kale ayaa qurba joogan laga farlaa warban taw ku taageerayaan ururka inta badan dhaqaale buuran male say isugu xoogiis ayuu ku tabarucaa marka waad ku naadsantiin amana oo isqabsanaa أبدأنا سنتنا. دونا كل بعد سجن سود وكبين دونا. قل بتشوك تنا كل دي مدحضو دي هو هذا الشيء هذا كان لما وضعنا كله بتحسي ولا عن فلا يعني هو بيسون دونا. أنا أقول واحد إنه يكون معنا كنا دوتا كسوق يمكن كان كسوق يبشرنا هذا كيجي سواء تبتين يو كان ما تعاو حكم أنا ولا فتان. قدرك هذا ماشي على واحد وياه كل يبدأ مركز طوح لبلعبه استعار الله شيء هذا اللي تشوش لما وعيه تشوش كاسبول يجينا وصعد أنا هرنا وجري لكن أورك عبك ما قعده أورك يعني وقاعد ساترتين يدك وحاهم مشغولنا كعام قلوين فينا تبدأ شو لأنه ليس الخبر كل معين بدي وحاولوش شيء واحد على تاسكم مدمح يدك وربط شقي صاروا يتبدأ محل يبقى يدكم بسنتين لكن ودنا اللفتي لو أنا يو قارنا هذا بدك شقيان أنا وحنا بدك شقيان وحي كسر على الإنجليز كعيت كلام وحنا مش كوسين بعض ما لا لكن فهمت الإنجليز كي وح مكير الميزاني بحطيك على شيء منكم بدرامو لأنه هو كتاسي واحد بني هم كتاسي كده يعني ما أنت ما بعرف هذا الكلام كتاسي ما تدري مكاني لم يدرس دعي مكاني إما هو صاحبه أوليدي كيف بان هواي لا أنا كم بعرف سوي ماذا وأنت سياسة وكيل فوق هاي لا لح بلاد بكارسين معلمتي سياسة وصول وقتنا وأسمع تبريد شو بان هاي بكبر مكا تعالوا ولكسو دعي شو بان هاي لا أنا ولكسو دعين هاي إذا ولكسو دعينه أنا كذا أقول له لبى يوجد هاي لبى أيو كذا نقول هاي عنده أنا يدوم بقى تعالوا إذنكو حمد نيشيا الناس كانوا يسوا دعين دونا صلاة بيجي
ilaaha sukeen keenay inagoo caafimaad qabna danteeni inaynu ku wada tashano halkan sukeen keenay ilaahaasaa mahad iska leh haddaan taa dhaafo ururka umad dhalinyaro imika halkan fadhida oo ururka gaar ah ayaa aniga 8 shirkan waxaa ka mid ahaa kow waxaa ka mid ahaa laba rag fara badan baa ka jira ururka umad iyagoona hayn bay 8 shirkan waxaan ku yidhi waxaad ku qasban tihiin inaad ururka umad ku biirtaan waa kuwa labadii buu joogaan labadaas ka joogaan waa 40 bay ahayd 40 bay ahayd hudeel daantaasay igula galeen hudeel daantana igula galeen hudeel kula halkana igula galeen waxaan ururka umad baad ku biiraysaan makaahil kala qaybsamo anigu mashaqo jooga waxaa tihiin makaahil dhisbayga ahayd waxa weeyaan ilaahay mahadi waxa ah ururkii gaar u siiyey ururkii umad ayuu maanta xubnihii sare ka mid maantaana urur gaar inay sameeyaan waxa weeyaan dadka hadlaya ee ururka umad ka daba hadlaya weli cidda dee danta wada ma hadashaba ee dantuun bay wadaa laakiin cid danta ka soo horjeeda unbaa virus ku noqota oo wartirta ilaahay kuwaasna haynoo soo hadiyey habaari mayno inagama go-aan taa haddaan sidaas iraa waxqabadka marka la socdo markaa dib u in yaroo naqabayno wax yar qabsano intii waa lana agso qaar unbaa ahaa waxba kama jiraan oo qof ama magaxa u diidaan ama urur magaxa u diidaan ama cid magaxa u diidaan cid unbaa daba socotay oo waxqabadkaa ama dawlad ina siinaysa ama dad kaleba ina siinaya ama qurbajoogga ina keenayo way ka daba hadlayeen waxa markhaatiga cumar maalintii antiga madaxweynuhu uu qotominayo qayb naga mida ayaa condition u haysay markaasaan ku yidhi waryaha baan ku yidhi cumar isagoo la joogaan ku yidhi sheegi maayo magacaada war heedha baan cumar oo markhaati ka oga war haddaan halkan anigu ku ceebooba adaa ceeboobaya ilaahay ka baqo wax ila hagaaji cumar baa quslay yidhi war waa lagugu gartay wax la hagaaji waxaan leeyahay innagu inaynaan iska shaqayno ee aynu ummaddeena u shaqaynaa siina ku gaadhna waxaana taala ama doorashaha noqoto ama kale ha noqotee dadku haddii talo ay isugu iman waayaan waxba ma maanta halkaasi intii nin qurbaha ka timid calool fiican iyo wanaag baad kala tegaysaa xaqiiqo midnimo markaad nagu aragtaan haddii laakiin aanu hadal kale gaar ku kala hadlayno oo reerka duminaaya calool xumaad nagala tegaysaa in unbaa gaar u tashato makaahiil ah oo dibeeto aragtoo tiraa sidana ay tira in badan oo aanay la tashana oo ay ku garanaysa dee wax aan saaxi ahayn oo ay wadaan been ka shaqato taasina socon mayso waxa weeyaan makaahiltanu ku soconaya wixii tala aan layskaga iman ee midnimo layskaga maarta aan arrin mid ah lagu dhaqaaqin lagu naga dumayaa maanta ururkaasoo qura ayaanu haynaa wax mid run baan dishi ururkaasina waan ku hor dhimanaynaa ku dhimanayno غالبا إله وين واحدة أنتي وإحسان لها الناس هذه ما تصل هي هنيدن في عين هي إله وين واحدة ما يصير هي نجاسيو عندنا وحكم الدولين عندنا مبوبين عندنا مليمو حرام قاطعنا نفتن إيدنتين المسلم وبتكين يا أيها المسلم ما أنت وحويا شو المرتبة بدو هيك كقولة ودي ذاك بدو halka keelada ka soo rigay ilaa bulxaar 108 kilomitir bas inta dhex socday reerka weyn ay sheekh intuu waxa la san baqaa 45 kilomitir bas geelan kama makaahil baa ad xoolaha kama makaahil baa qofka kama makaahil halka san ka baxo ilaa ila galo wadada makaahil baa qof kul deegaan dadku deegaan laakiin loo deegaan laakiin waxaynaan hayn 20 sanadood baa la inoo samaystay dad intii hore inoo jabisa maanta inay jabsi doonaysa intii u adeegi jirtay dadka kale ayaa maanta inay jabsi doonaysa ma yeelin danteennaynu wadanaynaa ubadkeennaynu u shaqaynaynaa nafteennaynu u shaqaynaynaa ayaheennaynu u shaqaynaynaa ninna waxba kama doonayno ninna ma boogayno ninnana waxa aynina hulayno uga tanaasulnay qurbajooga waxaa leedahay midnimaan idinku ilaahay haydin baraka sidaa aad usoo dhisisaan dalkiina u dhisa inta meeloodee waxay qabtayna gaar nooga haya ururka ummad
waxaan ka ballan qaadayaa in xalaha ganacsiga magaalada degan inaan martiqaad u sameeyno in aanu dhaqaalaha xaqaa dhaqaala ka mid ah halkan ka sameeyno oo la mid ah oo aanu taana ku dhaqaalan ka ballan qaadayaa ururka ummadna waxa weeyaan anigu markii ururkan ummad la doortay daahir sacad aad baan u taageeray horta waxaan ku taageeraynaa haddii maanta maxamed makaahilu yahay aad baan usii taageeri lahaa ma muuse makaahilu yahay laakiin qabiil bay dadku isku taageeraan anu daahir sacad baan raalli ka ahay iyo inta uu xukumo waa in makaahilnimo ay noqoto ilaahay hayna barakay intii dhimatay allah u naxariisto inta bugtaa allah ha caafiyo idinkana ilaahay caafimaad hayna siiyo intiina dibadda joogtana allah ha barakeeyo intiina halkan noogu timidna allah hayna barakeeyo dalka allah haynoo nimceeyo dowlad xaqa allah haynoogu dhiibo dad diinta yaqaan allah haynoogu dhiibo dad xaqa inagu hagaa allah haynoogu dhiibo dad cadaalad dadka ku sugaa allah haynoogu dhiibo subxaana rabbi somaliland tashatee hobay tuuruqood ku ciilbaxa hobay taakuloo ilaah siiyey